maalmaha ka mid ah dameer ayaa u yimid libaax waxaana uu ku yidhi boqorka keyntow waxaan aad ula yaabanahay oo aan fahmi lahay bini'aadamka waayo waxaan u shaqeeyaa habeen iyo maalin oo way irartaan nolol maalmeedkoodana aad baan uga caawiyaa haddana marka ay doonaan mid ka mid a inay caayaan waxay ku caayaan magacayga oo dameer ayay dhahaan xagga adiga oo ah boqorka bahallada ugaadhsada bini'aadamka cuna hilibkooda ku beera cabsi aad u weyn quluubtooda meesha ay kugu arkaanna ka guura haddana waxa ay ammaanaan geesinimadaada kooga awoodda weyn iyo kooga ay ammaanayaanba waxay ugu yeedhaan libaax miyaanay ahayn taasi wax lala yaabo libaaxii ayaa eegay dameerkiisa oo dhow la caddaynaya waxaana uu ku yidhi dameer yahow wanaagsani waxaa ii muuqata inaanad fahmin weli dabeecadda saxda ah ee bini'aadamku ma qiimeeyaan cidda uga shaqaysa hagar la'aan ee waxa ay ka dambeeyaan cidda tusta awooddooda layse oo xumaysa bini'aadamku waxay ku nool yihiin duni lagu maamulo qawaaniinta keynta halkaasoo awoodda la ixtiraamo awood darridana la xaqiro ee u shaqee dameerow laakiin ha ka sugin inay ku abaalgudaan ama ku wanaajiyaan haddii aad doonaysid ciwaan iiba ama aad iska iibinaysa ciwaan nagala soo xidhi lambarka brofiilka saaran.